maxaa naga dhaxeeya annaga iyo nimanka la yiraahdo suufiya maxaa isku haynaa horta ma dhul baa naga dhaxeeya ma xukun baan isku haysanaa ma beera naga dhaxeeya ma sumcad baan isku haysanaa arintu saama qof sumcad soo doonaya oo dhul doonaya aan kala baxno habaar ku kala baxno ma dhahay waxa la isku hayaa waa laa ilaaha illa allah ninkii fahamsanow iyo kan fahamsanayn ninkan wuxuu yiri laa ilaaha illa allah waan ku dhawaaqaya suufiga ama qabuuriga carabka waan uga dhawaaqaya ficil ahaana awliyadan caabudaya allana waa caabudaya ma saxba way cadda inay nasaxayn oo awliyadii say ku caabudaan nimankan awliya ma caabudaan alle caabudaan waa tukadaan waa soomaan maxaad awliyada ugu daba wadaan waxaan rabaa kii hore aan ogeyn oo ogow baryadu waa cibaado magangalku waa cibaado nidarku waa cibaado u gowriciddu waa cibaado isu dullayntu waa cibaado ninkii cid kala siiyana ilaahay buu sharig yeelay subxaanahu wa tacaala idan marka awliyadii bay baryeen si cad oo dadkii awliyada u yaqaaneen bay inta u yeerteen bay weliba ku faanayaan oo leeyahay yaa qutb alawliyaai yaa kaylaani yaa jiilaani aghithni yaguuth yaa jiilaani qutb alawliyaa tirkii awliyadoo dhan sayidkii awliyada jiilaani oo iisoo gurmo waa bannaanka arrin cad waay mushrigay dhibaysaa markaan warka saa ugu celceliyo maxaa yeelay maalin walbay ku dhawaaqaan internetyadii ka buuxaan ninkii raba inuu ogaado dadkan ilaahay keyrkiiba u yeertaan ilaahay keyrkii in loo yeertaana waa shirki haddaad ilaadii shirki ka aamusna kaa yeeli maayo shirkigu ha iska jiro dadku awliyadooda iska tuugaan adiguna rabbigaa iska caabud ilaahay baa idin kala saari doona qiyaamaha la tegi doonaayo maxaad wadaado ka rabta haddaad tiraahdo ilaahayna amar buu bixiyey oo wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruufi وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلهي بأمري هل إذا كهل أمت حقا عدينيسا منكر كبربرونيسا منكر كإنكريسا معروف كان ضدك فريسا كواسان الليباني سيدا وحي الله سبحانه وتعالى هذا يعود علماء كآمسين أما قارنا أنا كآمسين كور انت كمر مران حوغا كور انك شيغان annagu indhaha shirki faraha ka gelinayna maxaa guuloo laga gaaraya hadda doodii dad badan baa toobad keenay qaar badan oo masaajidka u dhageysanayeen ama markay baraha bulshada ka fiirsadeen ka fikiray masiirkoodii dambe war ilaahay kaliya u yeero maxay ku dhimeen aqliga ogolaanay markiiba rabbiga kaliya u yeero kaas sheedaanku wuxuu ku dhigi oo awowga baryay awliyada ma awowga iyo aabad ka hari aabay iyo awow hadii awliyo u yeeranayeen wada baadiye ku tageen adugu hadaba gelin oo diintu miya cusubta diintu ma way jirtay waa laga inxiraaf boqolaal sano hore la inxiraaf suufiya qarniga afraad soo bilaawday shiicana qarniga koowaad soo bilaawday qarniga afraad soo bilaabatay qarniga 14aad baa la maraya kun sano ay jirtaa markaas qofku wuxuu moodayaa diintii asalka ahayd inay bataa awliyada lagu tawassulo iyo meedkan loo yeerto idan marka waxa naga dhaxeeya waa laa ilaaha illa allah wa isku haysana هذان خصمان اختصموا في ربهم بالمرين لبدون ربي قد باسكو قبسدين محايا للتوحيد وحدين ربي كليس لا عابديا على شركين وحدين ربي انا وعابدينا عيد كلنا واكو درينا اوليادي بي كو درين ميتيدي بي كو درين او ان قرسودي لهين ان قبشو لهين هذا شيخ نور بي يرانيين ولي مid odayaashooda kamid waxa la iga sheegay toddobaadka hadda la soo dhaafay kii ka saddexaha inuu yiri maanta waa jimco caawa sheekh nuur baan la joogana maqlay dadku ku yiri baa ka waramay waa sheekh culimadooda kamid sheekh nuur baan ta soo baxa oo buqdishay xaalasha biyaa yimaada kala qayb galay miya ziyaarada waa khiyaali ummadii hore lagu soo baabiyay dadkeeni in khuraafaad diin looga dhigo dadkii in la badbaadiyana waa in xaq la cadeeyo maxaa yeelay ilaahay amar buu bixinaya dadka xaq qarinayna ilaahay la'anad buu ku riday balaadu dhageyst qaala subhanahu wa ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun kuwa qarinaya xaqi aanu soo dejinay markaanu kitaabka ku cadeynay kadib qarinaya kuwa ilaahay baa la'anaday
عيد كستو وحل عنا دانا وين لعنضي إلهي نقولوا كرر مركه وتوبتك أنت واكوه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كو توبتك يا مويه إلا الذين تابوا وأصلحوا عمل كوذا وناجيي معاكو حيقا وبينوا عديي وحي قرنيين أي عديين دادك وشيقا فأولئك أتوب عليهم بألي كوا وانك توبت أقبليا وأنا التواب الرحيم رب العالمين كلام كي سوا وحلا قرية ما أنت أو كوي ما قرنيسان توحيدك إلهي مايا وحلا قاعة مسوء منكر ما أنت كوي شركي ما قرنيسان مايا مصيبة ما أنت جرتين تلاقتهي قفك عاقلك علمي يربى هذا والله هو قرنيا محايا لإله الشرك مع فيه قف أهل الشرك إن جنة وكحرمي وأنا قرآن كينو نرى نقضه وحن معناها ليس كذا يستوى إلا الراحة قلبك الله ليوصى ومصيبة كلوة قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نكي الله الشريك يلبى عليه سبحانه وتعالى إيه سيدا كل انت على قوله فقد حرم الله عليه الجنة إلهي جنة سوى كحرمه وقرآن وآيات محكمة منسوخ معها متشابه معها ومأواه النار هو ودقيان النار وي وما للظالمين من أنصار مشركين توحوا قرقاري أنا مجرى وكلامك إلهي سبحانه وتعالى هذه الشركة قريشين يا شركة ما أنت الصومالي قبوريين السميسان أيام أي كلا دوين إيش هذا وحتى هذا وداد ودق دقيسة الصومالي قبوريين تام الصوفية ذا إلهي غير كتوجا يا رنا يعني أيه قديم ملهان والله عذر دارا الشهادة ذا الله فيرنا نبي إني أقولين بالله فيرنا شركي قادنا قديم ملا إلهي سبحانه وتعالى وحبه ما يستو كي قريش السماء وح الله يا أصحانا ملا لعنت يا كفر بالله والله ما الشركة هذه كلا صارت أدرى الشركة الصومالي قديم ملا لكن شركة قريش دبوا لي هذا دبي ترى دليل بنكارة ما يلاقي بقى الشركة كفض لي ما يلاقي بقى الشركة هرية مدة بكرة جعل مثل الصنم لا يرتى الله وصنع قلين لكن النبي إن لا يرتى أولياء إن لا يرتى إن علماء له توصلوا إلهي وأقوليه ساس مياه سبحان الله سبحان الذي طبع على قلوب أعدائه مايا والله هو الأغنهي إلهي حقيس الشرك وشرك حقنا لك استامرك أو وحنا النوم وقدتك قار أنا يقوم موقن وحنا يقوم موقن أدبشن كي أنا هروق هذا اللو لقبصي شيء مركو بني آدم كل جوجو لقب صدو علو ماركو معايا لي حافظيني درس كيني قاركين بأولياء إسكبري قروا والباء باي سيتي لواهي أما سقروا والباء لواهي شيء عبد القادر وويس ولبوبا وويس مركزان كوسو بربارني وأرقني عادي بينه ونقط ماشى وجيلاني وويس وغيرنيو هذو عيسى ويرت محل له عيسى رسول الله بالآذو فيريا نميهم ورسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام يا عيسى أغثني أنا حسبك يا ابن مريم أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أغثني يا عيسى ويو يا رنيا نبي عيسى وابا كريستان يا بابي نكانوا نبي عيسى ويرت كريستان بتكون حكومة ما بعد الله بالله بينبا نبي عيسى الله بريء خلاص عندي كريستان كوي جيلاني ويرت محمد سلام كوي جواب ملا إسي لفتك يسوي يا رني مركان ويدنا محاوي يا رتي نحو هذا يا أيوه ما أنطرني إيجار المجرور والإلهي كلي هلا عابدان كوها يستا والرئيس هيستمنهم ربك عباد عدك لكود رئيسا محاض أبو يا رتي عدك له جواب ملا أنا هنا عيد أفلقادو جوابتك وحكى لما هي محايا لما لكوتا للهيل ما يويس ويارو ولا شيخ ويارو ولا نبي ويارو ولا أوو ويارو ولا ملك ويارو ملك ويارو شدين وعباده إلهي النار تمركو كوكورا مشركين تبرو إلى دقيست آيادا سورة غافر وحيوران يا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل والقرآن كما هو البوان أخرنا لكن وإن تطبيقنا
ilaahu laba goor baadna dishay laba goorna waadna noolaysay dunuubteenni waanu qiranay maanta qaab aan jahannamo uga baxna ma la helaya jawaabta ilaahay siinaya fiiri ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم هدي الله كلي الله ياره وديدين وإن يشرك به تؤمنوا هدي الله شريك لنا وقولاتين كواس إلهي الله هذليه ما قريش يعاد يثمود كليا كوانكم جيران مياه إلهي كلي هدي الله يارنا وديدين محين نقول هذين يا مانت maxaa keenay hadda hataa waxaa la ii sheegaya maalin dhawata mid shir qabtay oo yidhi wadaadkan dhankii dowladdana waa nala ka qaban waayey oo waxaa weeye dowladdu waxay tiri wadaaddo ishayaatiina kitaab iyo ku kala baxa kitaabba isula imaada kala baxa maxabadaa laydinku rida maya soo wadaadayna la hadlay maaha kala baxa la yidhi way soo afjarmeen waxaan hadda u diyaarinaynaa shir buu qabtay waxaan magaaladaana weliba waxaan diyaarinaynaa buu yidhi gruub la yidhaahdo ciyaal nasteexo weligii daraad ka war ma maqlo nasteexo wax fiican baaban u aqaanaaba nasiixan u aqaan markaasaa la weydiiyey shiikow nasteexo yaa waay hore ma u maqli jirteen buu yidhi waagii dowladda ciyaal fay cali haa kuwii kolaan diyaarinaynaa meel baan iska go-aan la gaaray weeye gabar marka dhegaysanaysa oo la joogto isagu moodaya inay la caqiido tahay shiikow nasteexo maxaa ugu diraysaan bay tiri ما أولياء أدرتان قارت بها ساقبته أولياء أنت الله أدره وذات كان قايل لي ما مدح على سوى جبين ما أولياء مدرنا أولياء مدرنا خلاص أدرنا وهذا قاتمية أولياء إن أنا حبيت الكريم بيكتري مركز أضو حقيقة جرتا ولا الكي وايتر الله أكبر توحيد كان ولا كنا وجه هذا ما قانني ما وين بنت نقول شو يسال لقوها يستعدل حاجة يستمحات كان جيستر ورات ثانية البنان كتيمات فاي علي يحاول على حوانا ما قال أنا آمنا بالله وحده وكفرنا بالشرك والطاغوت قبل أنا خير الله سي آمين ده إلهي هالشرف وي أفكر يقولون حيبا نك محايا لما يشهد كمون فيلين قف يسوي كوين كره وحوته ولما أغرب ده وينها هاي من فيلين وحن كوذا محا عراد أنت الله كاني جيراني الرفيعي ويس يعني الله يروا ما كون خلدنا أخياره إن أولياء الله يرن وندك وش يقول الله ما يرن كره الله كليه ما كون خلدنا ما يجزاكم الله خيرا والله إسلام كاسوا بورنا وقدم ما يبنان كان لتاجنا سومو هذا وطن قال لي إن أنت كانان أنا سهوارنو dabadeedna ninkii shaki ku jiray shakigii meesha ku baaboo hadduu iman waayo dib isu celiyana maxaa kuu soo baxay baatil inuu yahay soo ma laakiin waa cadcad yahay inuu iskeeni doonaan u malayn waxaan marka naftayda iyo tiiniba u dardaarmaya laba islaam ma jirto akhyaare islaam ilaahay keliya lagu tuugo nabi maxamedna lagu raacay oo kii xaq ahaa iyo islaam kaloo allana la tuugo awliyana lagu daro فاطمة رسول يا أبا حاونا لقدره لبضوا المسلمين أو كانوا عذر دار ليه كانوا عذر دار ليه والله بين والله بإسلام يجر جاهلنا ما أنا ما كانوا أقوم بالليل علماء حتى واحد هذين حديث ضعيف يا موضوع ضرر واحد دليل سنة ما يركز حديث قوائم العرش كان ليه أكله وموضوع كيدا ما مركز ما سنة من الأنبياء وكتب وصلي مع النبي والأنبياء وكتب وصلي موضوع كلوي حديث موضوعي يا منكر يا متروك ما يجان وحي موافقسن خرافدooda afka u gelinaya maxay sanad ya saani shaqo kuma leh sababka nabiga arrinta uu sheegay uu yiri hatta ma yaqaanaan waxaan u eedeynayaa mawduuc bay soo daliilsanayaan xadiis fabrication been abuurwa darajada ugu dambaysa xadiis dhaif waa mawduuc waxa ku jixiga matruuk waxa ku xiga munkar kuwa kala disiin kala darajo leh xadiis culimadu waa weena ku sheegayaan ذهبي بكل شيء نسائي بكل شيء علماء منكر موضوع وبنابور يسوي دليل سنية ضد آخر يا شعب ومساكين والنبي وحكوت وصلي النبي آدم وحكوت وصلي حواء نبي محمد عليه الصلاة والسلام بودي مركز إلهي سببت النبي محمد وكو عفي موضوع وحاز مركين ضدك اللي جوهم فوق ضدك الرب يقعد لقو حيرو إلهي كلي الله يرتو
taasaanu habeen iyo maalin u taagannahay mana ka gaabinayno iyagana waxaanu leenahay ilaahu intaad hanuun la maagtay soo hanuuni aamiin dhah col baa naga dhexeeya waa run laakiin hidaayada u rabnaa hidaayada u rabnaa sidoodoo kalean ahayn shalayto yaxyi mawrif iyo timcadda u yeeranayn waa jin sidoodoo kalean ahayn shalay waxaan u yeeranayna odayaal dhinto waaweyn odayaasha waawan ku hayn laakiin iyada allaana hanuuniyey kuma faanayna ilaahay baan ugu shukrinaynaa ilaahay inuuna hanuuniyey iyagana waxaan la rabnaa hanuun laakiin iftiinka waa la daba soconayna maalinba koox baa ka harayso ku inkiraya bal raggii dhallinyarada raggii shalay yimid mid ka mid ah sheekh aniga igu daran raggaan buu war waxaa laydinku haystaa jiilaani baa ilma abuuray dadka dhahay ilma kaa rabaa jiilaani ow ka jawaaba iyagiibu ku yidhi markaasay caroodeenba xoogaa waa raggii isla socday asaga markuu ila mabda maabir ay u khaldan bir sheekh markaa in adinka qabuuriinta adinka suuqaam hay ugu daran bir aniga war adinka jawaaba iyagiibu ku yidhi allahna ku maadsan subxaanahu wa tacaala ma moodin heerkaanu tawxiid ka gaaray iyo inkiri shirka oo inkirayo allah ku maadsan kuwii ka laftigoodan rajaan ka qabno mid ka mid a wuxuu yidhi anigu in awliye loo yeertay munaaqibka beri baan ka ah meeshii buu ka yidhi ma beri baa ka tahaa ilaahay baa ku maadsan baan ku uri kuwa ku dhaqanna ka soo har laa dadku caqiidada ummad baa wata ninkii lasoo diray laftigiisaa yidhi beri baan ka ah allahna ku maadsan haddii markaa annaga horteena keliya uu ka yidhi iyo hadday caqiida u taha asaga u taalla waxaan ka wadaa dadaalkaas wuxuu keenayaa maalinba dadku inay ka haraan shirkiga waxay nala rabaan kuwa zanaadiqadaah inaan xaqiiqdan qarino laa ilaaha ila allah inaan cidna loo caddayn lagu colaadin la ysugu iman maya dadku iska badaa kana qabr masaajidkiisa ha joogo awliyada ha tuugo kanu maa sha allah xayaaka allah iska dhaw min salafi saalax kana masaajidka iska gur tabliiq ha iska soo wareega isaguna ha baxo hal aayada soo sheego ha soo laabto isaguna mid kale alislaax meeshaa iska jooga isaguna siyaasad iyo dimuqraadiyad iyo islaam ha iswaafajiyo maya laa ilaaha ila allah urur ma aha magaca qabiilna ma aha waa manhajkii ilaahay magaca alla bixiyana waa muslimiin huwa samaakum muslimiin caqiidada asiilka ay baan ka doodaynaa inaan anagu badbaadno janno galnaan rabnaa cadaabka ilaahay ka badbaadno ee guul iyo dagaal midna ma aha iyaguna inay badbaadaan baan rabnaa waxaan leenaha marka sidii nebigu yidhi reer daws oo kale allahuma hdi dawsan waati bihim ilaahu suufiyada soomaalida hanuuni ilaahu suufiyada qabuuriyadda geeska africa hanuuni intaad hanuun la maagtay ya daljalaali walikraam ilaahu waxaa caalamka shiico iyo qabuuri iyo mulxid iyo calmaani jooga allow hanuuni intaad hanuun la maagtay ya arxam araaximiin waxaadan hanuun u qorinna ilaahu afka ciidda u geli ilaahu ka hor leexi islaamka iyo muwaxidiinta intaasaanu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala mar labaad baan ku celinayaa farriinteedu waxay ku socotaa sheekh soomow shiikhnimadiisaan u qirayaa ciddoodu shiikh u yahay qolada uu la joogo ayuu shiikh u yahay laakiin caqiidaan ku haystaa munaaqib uu ololeynayaa inuu soo celiyo anna waxaan u ololeynayaa munaaqib inaan burburiyo gubaba oo ilaahay keliya dhulkaan lagu caabudo laa munaaqib walaa hayri qur'aan iyo xadiid inuu sarreeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortii ayaanu isku habaaraynaa fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin waa ninkaa odagaa farriintu toos ugu socotaa hadda awalkii 2 toddobaad baan sugayey nin odaya meelahan jooga inuu cudur daartay baan u malaynaya ama uu yidhi hawshan yaan laygu soo qaadin camal ma aqaan laakiin raggii xataa noo yimid isagii inay is arkeen in kale noomaanay sheegin waa weyne iyo ma hayno midna ma dhihin ma shardi ba ma asaga keliya de waxaan yidhi shiikhiinaa shardiga waxaan ka wadaa dhalinyaro iska doodooda arrintii aan laga dhigin shiikoodii ugu weynaa markuu yimaado oo uu doodo oo nusuusta wax ku waayo oo uu doodo oo wax ku waayo u yidha waa sabaaraynaa oo afka ciidda la galo maxaa soo baxay in wixii oo dhan baatil yihiin hal qof oo gubta oo ciqaab adduuniya mid aakhira la isugu daro iyo malaayiin ummadoo shirki loo kaxeeyo oo naar loo kaxeeyo kee daran idan sacrifice baa loo baahaya nafuur waa ku qanacsanahay ilaahay keliya oo la caabudaa diinta nebi maxamed inay tahay in awliye loo yeertaana diinta abujahal inay tahay aan ku qanacsanahay diyaar baan u ahay naftayda inaan u huro ilaahay hortii alla wada barino ani asagaba asna diyaar ha u ahaado munaaqibkiisa iyo awliyadiisa inuu nafta u huro wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam